الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته laba qiso oo kooban ayaan jecelahay inaynu maanta soo qaadano aan soo sameeyo hordhac iyo muqaddimo ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa uu inoo sheegay quraankiisa kariimka ah intaynu adduunka joogno inaynu imtixaamanahay wanabluukum bisharri wal khayri fitna marna nimcada iyo barwaaqada lagu imtixaamaya marna waxa lagu imtixaamaya dhibta iyo duruufaha adag ee ku soo maraya mararka qaarkood isagoo ilaahay jalla jalaaluhu xagga dhibta in la isku imtixaamo ka waramaya waxa uu yiri wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-juu'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiri as-sabirin waxaan aad idinku imtixaamayna intuu ilaahay dhaartay waa idin imtixaamayna oo waa idin imtixaamayna bishay'in wa qadar wa xogaa waa lagu taabsiinaya mararka qaarkood waxa la isku imtixaamaya xagga dhibta oo maxaa kamida bishay'in min al-khawf mararka qaarkood colaad iyo cabsi wal-juu' mararka qaarkood waxa la isku imtixaamaya gaajo wa naqsin min al-amwali mar xoolihii ayaa laga soo galaya adiga oo ay meel wanaagsan ku mareysay ayaa dhulka laga dhigaya wal anfus mararka qaarkood naftii iyo jirkii baa la isugu imanaya oo xanuun iyo nuqsaan baa ku dhacaysa wath-thamarat mararka qaarkood zarci ayaa ilaahay imtixaan kaga furaya waxa ilaahay ku salidaba mar uu abaar ku salido iyo mar uu xasharaad iyo cayayaan ku salido iyo mar wax kale uu ku salidaba ilaahay wuxuu bashiri saabiriin waxaad u bushaaraysaa kuwa sabraya hadaba waxa kamida waxyaabaha la isku imtixaamayeen carabka marinay waxa kamid ah walaalayaal wa naqsin min al-anfus nafta in la isugu imanayo oo nafta mararka qaarkood la imtixaamayo waxyaabaha nafta lagu imtixaamana waxa kamida xanuunada xanuun marka uu yimaado ee uu qofka ku dhaco ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo jideeyay asbaabo iyo dariiqooyin loo maro ilaahay baa xanuun kana keena caafimaadkana isaga ayaa gacanta ku haya oo ka qaadaya dhibtii caafimaadna kuugu bedelaya nabiyullaahi ibraahim waxa uu lahaa isagoo arrinkaa caddaynaya ilaahay arrimaha uu gaarka leeyahayna inay tahay sheegaya wa idaa maridtu fa huwa yashfiin haddii aan xanuunsado ilaahay waa ka caafimaadka isiiya haddaba sababo ilaahay inoo jideeyey marka caafimaad la doonayo ayaa jira sababaha waxaa kamida in ilaahay la baryo sababaha waxaa kamida in qur'aanka la isku akhriyo oo la isku tufo sababaha waxaa kamida in dawooyinka dadka aqoonta u leh ay sheegaan dhakhaatiirtu ay sheegaan iyo ta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inoo sheegay in labadaba la isku daweeyo dawooyinka xisiga ee la dareemi karo dawada doctorka aaminka ah iyo ee dawada aaminka ah ayaa ku qoran inaad isticmaali karto waa halkaan u socday waxyaabaha la isku daweyn karo waxa kamida sadaqada wax bixinta ila dhageysta labadan qiso hadaba ibn shaqiiq ayaa waxa uu ka soo wariyay oo uu yiri waxaan dhagahayga kaga maqlay waxaan dhagahayga ku maqlay ibn mubaarak wa abdullah ibn mubaarak waa culimadii waaweyneed ee islaamka 118 hijriyada ayuu dhashay 181kiina uu dhintay waa culimadii waaweyneed waa qarnigii labaad ee hijriga waa culimadii waaweyn ee ummadda muslimiinta ay leedahay abdullah ibn mubaarak wuxuu caan ku yahay saddex arrimood mu'arrikh wa taariikhyahan wa faqih xagga fiqigana waxa uu ku lahaa baac iyo gacan sare
waxa kale oo uu ahaa muxadis cilmulxadiidka aad buu ugu horreeyey caalimkaa weyn ee aqoontaa leh oo culimo waaweynna wax ay bareen abu xaniifa wax baray awsaaci baa wax baray iyo culimo kale ardaydiis iyo sufyaan athawri culimada isaguna rag uu wax baray oo qiimale baa jiray ayaa waxa uu yihi waxaan maqlay ibnu shaqiiq baa odhanaya iyada oo intuu nin u yimid cabdillaahi ibnu mubaarak uu ku yihi niyow xanuun baa i haya lowgaa soo arki maysid 7 sannadood baa nabarkaasi ku yaalla dhakhtaroo dhanna waanu la tegey wax ilaa hadda caafimaadana ma hayo sheekh bal ka waran sheekhii bal halku la maray eeg wuxuu ku yidhi idhab dhaqaaq buu yidhi oo waxaad qodaa ceel meel dadku aada ugu baahan yihiin ceelka baahi biyood meel ay ka jirto ceel ka qod waxaan rajaynayaa dee meesha imika waaba la sahamiy geolojiyiinta ayaaba inoo sahamiyee meel biyo ka soo baxayaan oo biyahana looga baahan yahay ceel uga qod waxaan rajaynayaa markay ishaasi soo burqato ceelkaasi soo burqado in ilaahay dhiiggan ku socdaa iyo dhiiggan kaa istaagi waayo iyo boogtan kugu taalla iyo nabarkan in ilaahay caafimaad kaa siiye ninkii baa cararay waa raadiyey waa helay waa qoday ceelkii baa ilaahay biyihii ka soo tuuray markii ilaahay biyihii uu ka soo burqiyey ayaa nabarkii 7 sano loo taagi waayeyna ilaahay dhiiggii ka joojiyey oo ilaahay caafimaad siiyey halkaa ma fahanteen laakiin yaqiin bay u baahantay qisadaasi waxay dhacday qarnigii 2aad ee hijriga ayay dhacday ama waqtigii cabaasiyiinta ayay ku dhoweyd iyo umawiyiintu markay isgaleen qiso imika dhacday beri dhoweyd dhacday ayaan iyadana idin raacinaya gabadh oo wadamadan khaliijka gabadh baa waxa ku dhacay waxaan loo yaqaano fashal kalawi kaliyaha fadhiistay ilaahay waxaan baryaynaa in ilaahay caafimaad ina siiyo wixii dhib qaba iyo xanuun qabana ilaahay xanuun ka dulqaado inantaasi ama ruuxa dumarka ahi xanuunka waa la dhibaatootay marba dhakhtarka ayay iskaga daba noqotaa dawooyin kala duwanna way qaadatay akhiiran waxay noqotay go-aankii ugu dambeeyey wax la maydhaba wuxuu go-aankii ku soo ururay waxaad u baahan tahay kelida in lagaa bedelo innagu waxaynu idhahdaa af soomaaliga qofkaa keli baa laga bedelayaa keli baa loo soo iibinaya maaha waa qalad kelmaddaas keli baa loo soo iibinaya kelida malaayiin haddii lagu bixiyo lama iibsan karo bal tacbiirkay gabadhan isticmaalaysa eeg deedna gabadhu waxay doontay fatalabat man yatabaracu liha bikliya waxay dalabtay oy tiri yaa iigu tabarucaya yaa ilaahay dartii ii siinaya kelidiisa yaa wax labadan kelimood mid baa isbeer ah mid baa shaqaynay ta kale tii isbeerka u ahayd yaa anigu aan ku soo dhaqaajiye jidhkayga yaa iigu tabarucaya tabaruc bay tiri tabarucu waa wax ilaahay dartii laysu siinayo laakiinse waxay tiri inagu halkan anigu waa la soo iibsaday waxay tiri oo aniguna abaalgud aan ugu daraa ma kari karo inaan kala iibsado laakiinse yaan aniguna abaalgud siiyaa walaalkaa ixsaanka iyo samafalka sameeyey oo ilaa 20,000 oo dollar riyaal ah waa ilaa 5,000 oo dollar warkii baa dadka gaadhay dadkii warku gaadhay waxaa ka mid ahayd imra'atun faqiira gabadh faqiirada gabadh saboola oo caydha ayaa ka mid ahayd wallahi waxay tihi jaanis baa ku soo maray maanta kelidana iska tuur iska sii daa mar hadday ta kale kuu shaqaynayso waxoogaa dhiishii faqrigana bal muddo aad ka nasatid iyaduba waa xikmade dhakhaatiirtu marka uu qofku yidhaahdo keli baan u saaraya hebelkaa kale markaaba layskama ogolaado labada ruux baa inay is aqbalayaan bay dhakhaatiirtu baadhaan dhiigooda arrimahooda oo dhan bay baadhayaan caafimaad ahaan inays qofkana la baadhaya xataa laftigiisa sixadiisa iyo caafimaadkiisa la baadhaya bal xikmadda ilaahay gabadhaa miskiinadda ah iyo gabadhaa kelida loo saaraya 100% way iswaafaqeen deedna ballankii ayaa la qaaday waxaa la yidhi maalinkaa isaga ah ayaa camaliyadii la samaynayaa
tiyatarkaad gelaysaan labadiinuba tiyatarku waa qolkan ghurfatu alcamaliyaat ayaad gelaysaan dabadeedna soo diyaar garooba waxa marka hore laga camaliyada koowaad lagu sameeyo ama operashka koowaad deeta laga saarayo faqiirada gabadhii saboolka ahayd baa horeynaysa gabadhii baa soo horreysay faqiirada ahayd saboolka ahayd ay dhahayd subaxdii bay soo kallahday haddii ay soo kallahday waqtigii loogu talagalay waxaa ka soo daba gasho ka dambeysay gabadhii loo saarayay kelida haddii ay soo gashay gabadhi oo ay gabadhii walaasheed ahayd ee ugu tabarucaysay iyaduna jaa-isada ay siinaysa ay aragtay saasun bay u agtay inuu fa idaa hiya tabki gabadhii caydhahaydoo ooyeysa ayuun bay aragtay waaba ooyeysa waa ilmeynaysaaba gabadhii xanuunsanaysay baa aragtay waa la yaabtay deedna su-aal bay weydiiso waxay ku tiri miyaa lagu soo qasbay ma cid baa dabada kaa wado oo dee dadka qaar baa la qasbi karaa moogta ma cid baa dabada kaa wada maxaad la ooyeysa markaasaa waxay ayay ugu jawaabtay maya wax aan la ooyayaan kuu sheegayaa dhegayso inaan kelidaydii saaro oo aan cid ugu tabaruco cidna maan siiyeen kelidayda waxa iigu wacan bay tihi saboolnimada iyo caydha ee haysa ee kelidayda maan saareen intaa yare lacagtabaa ii muuqata macnuhu sida iyo baahidan maanta dhaqaalo u qabo ilmadii baaba sii tuurtayba hig waa sii wadayba ilmaaba isku dartayba oo hintii baaba sii badisayba gabadhii xanuunsanaysay ayaa dejisay walaal aamus isdeji bal i dhegaysa aniguna mar aan kula hadlaya waxay ku tiri hortu kelidaadii hayso waxba hay saarin ma faqri iyo busaarad baad ka cabsanaysay lacagtii aada maqashay ee 20,000 ee riyaal ahayd ee aan jaa-isada u bixinayeyna hoo iga qabo kelidaadiina hayso aniga ilaahay sukaayada subxaan allah waa halkaynuga soconnay gabadhii imika ilmeynaysay ayaa farxad haddana la ilmaysay halkaasay ducadii ku jirtaa soo maa halkaa markay maraysay dhacday ducadii dabeedna iyadoo lacagtiina haysata kelideediina usoo nabad gashay ayay halkaa ka baxday halkaa inoogu jooji gabadhiina gurigeedii bay iska tagtay xanuunsanaysay haddii dhowr cisho ka soo wareegeen dhakhtarkeedii ay la xidhiidhi jirtay ayay ku noqotay malafkeedii iyo faylkeediina waa la soo saaraya gabadhii waa gabadh keliyuhu fadhiisteen oo la wada yaqaano dhakhtarkii ayay u tagtay deedna faylkii baa la baadhay waxaa loo diray cayinaadkii iyo wixii dhiiggeedii iyo hawlaheedii baa la diray dabadeedna lam yajiduu aya aharin lilmaradi waxbaba waa laga waayeyba xanuunba waa laga waayey yaa xanuunka gacanta ku haya caafimaadka yaa haya sabab ilaahay muxuu uga soo dhigay sadaqadii baa ilahay uga soo dhigay ugu dambeyn waxaan ku soo ururinayaa walaalayaal sheekh culimadeenna ka mid ah inaan saddex ka dhigay hayde oo culimada halkan inaga wacdida dee waa taqaanaan magaciisa aanan iminka sheegayni ayaa dhowr iyo 10 sano ka hor dhakhtarkan hargeysuu galay saalii beerka khatar beerkaagu waa khatar ayaa lagu yidhi sheekha waa taqaanaan laakiin ma doonayo inaan magaciisa idiin sheego laakiin waa sheekh culimadeena aad taqaanaan ka mid ah anu dhakhtarka waan ugu tegay beriga sheekhi ayaa xadiiskan u fahmay xadiis baa jira xadiiskan kusoo uga jeeday maanta daawu mardaakum bisadaqa buu nabigu ku daweeya kiina xanuunsanaya sadaqo laakiin waa inay niyad kaa tahay ku day maaha hadday ku tahay waxba lagugu daweyn maayo dar ilaahay waxaad bixinaysaana wax kugu weyn waa inay yihiin culimada saas haddaad adigoo haysta $100,000 aad soo saarta $100,000 Somaliland waxa ma taraysa bay yiraahdaan wax weyn oo kugu yaro culus dib kaasiya oo miskiinka ama qofkaas siinaysa ka farxiya la doonaya mustawahaaga adigu aad tahay مثلا haddaad $1,000 haysato $300 ama 4 haddaad dhiibto مثلا waa xoog sheekhani xadiiskan u fahansanaa islaantiisii buu u yeedhay wuxuu yidhi xanuunkaasaa la sheegay islaantani way isku wanaagsaneen xaaskiisa masuu hortu maxaa hanti aynu haysan adduun maxaynu hayni markaas idin wax adduuna waxaynu hayni $600 lixdaba keen buu ma oran boqor caruurta u reeb lixdaba keen buu lixdaba sadaqa u bixi buu imka si dad jilicsan raadi buu lixdiiba way bixiyeen
sheekhi ilaa yowmina haada wuu caafimaad qabaa aadna wuu idiin wacdiyey marar badan waxaan weydiiyey sheekhii beri dhaweyd baan su-aasha lacagtaan ka shakiyey lacagta ma 200 buu berigaa kugu yidhi mise 600 buu kugu yidhi saan beri dhaweyd waraystay horta sheekh lacagta maxay ahayd markaasuu yidhi 600 bay ahayd markaasaan ku yidhi ka warran maasuu yidhi arrigu waa halkii wa soo nin ilaahay wax kala iibsanay marka halkaad idinku baarasitimoliya baad mararka qaarkood u haysataan waxoogaa yaroo dawooyin oo daba carartaane halkana wax ma ka daynaa allah inagu anfaco wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu